bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah aan diiradda ku saareyno soo dhoweyn loo sameeyey wabarka guud ee beesha baadacadde wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo dhowaan soo gaaray gudaha magaalada muqdisho. wabarka ayaa waxa uu kasoo duulay magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uuna kusoo wajahnaa gudaha magaalada muqdisho. soo dhoweynta wabarka ayaa waxaa ka qayb galay waxgarad dhaqan, siyaasiyiin, aqoon-yahan, haween iyo marti sharaf kale oo ku diyaarsanaa garoonka aadan cabdulle cusmaan ee magaalada muqdisho. soo dhoweyn kadib ayaa waxaa loo gudbay qaybta VIP-da ee garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho. intaas kadib waxaana goobta warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada, waxgaradka, dhaqanka iyo qabanqaabayaasha soo dhoweynta wabarka, waxayna si isku mid ay u soo dhoweeyeen wabarka guud ee beesha baadacadde wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay maanta soo dhoweynta wabarkeena wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi, aad iyo aad ayaan idin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi waxaan maanta halkan iskugu nimid soo dhoweynta saaxiibkay wabar maxamed. wabar soo dhowow, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaad maanta ku soo laabato gurigaagii. aad iyo aad ayaan kugu soo dhoweynaynaa, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. xubin muhiima oo inaga maqan ayaad ahayd. aniga iyo adigana hadee waa isla soo qariibnayoo laba weegoon baan kaa soo horreeyo, inta kalena waa isla joognayoo runtii waa waqti fiican aan isla soo qaadanay Nairobi. anigu kolley si khaas aan ugu faraxsanahay soo noqoshadaada, waayo waxaan nahay saaxiib khaas ayaan yacni nahay. 4 biloodna waa isu gaar ayaan ahayn. marka wabarkayga soo dhowow, gurigaadii ku soo dhowow, ilaahayga ku soo aruuriyo ku soo celiyana waa kaga mahad celinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta wabarkeena, walaalkeena, saaxiibkeena. waxaan aad baan ugu faraxsanahay wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi safarka oo dheera uu ku maqnay banaanka. waa soo dhoweynaynaa, walaalka noo yimid waaye. aad baan ugu faraxsanahay. الله بركة خير بدن الله سيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الحضور، دوبابك وقاسيدا وديالك دقنك دنياردا سلويدا dadka xuduurka ee meesha jooga maanta fadhiyo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa saacado barakaysan maanta, waa maalin mashhuud oo taariikhi ah. wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi uu ku soo noqday dalkii. aad baan ugu faraxsannahay. runtiina waxa weeye waxay muujinaysaa midnimada beelaha walaalaha ee wada degan, oday iyo abti isu ah iyo walaalo wada dhashay inay maaragtay meeshaan ku soo dhoweeyaan maanta. aad baan ugu faraxsannahay. waxaan jeclahay marka in aan iraahdo wabar maxamed ku soo dhowow, waa lagu sugaayey inaad wax hogaamiso ood wax hagaajiso ayaa lagaa rabaa insha allahu tacaala. dadkana waxaan leeyahay ha la isku duubnaado, walaalnimada ha la muujiyo. ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. marka inaan isku kaalmaysana khayrka iyo wanaagga iyo samafalkaa loo baahan yahay insha allahu tacaala. waxaa lagu jiraa saacado ama maalmo xasaasiyad ay ka jirto dalka, marka inaan u duubanno meeshii aan ka nimiday iyo dhulkeenna iyo dadkeenni, inaan annagoo midaysan aan maaragtay u shaqaynaa loo baahan yahay. waana mahadsantihiin, jazaakum allahu khayr. idinkuma dheeraynaayo wakhtigaa kooban. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maanta akhyaarta meesha iskugu timid waxaan iskugu imaanay soo dhoweynta wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo nooga yimid Nairobi muddo nooga maqnay. sidaa darteed wabar maxamed soo dhowow, dalkaadi ku soo dhowow, dadkaadi ku soo dhowow. intaan waa intii aad ka tagtay.
oo garoonka kugu timid oo ku soo dhaweynaysa waxaa laga rabaa wax badan aad naga maqnayd dadkaadii aad u timid waxaa laga rabaa inaad la booriso waxaan rabnaa dadkaadii aad u timid xilli xasaasiyana waa lagu jiraa de waxaan gurigaa baan kaa rabnaa wax badan aan ku filanayno korkuu dhowrayno inta soo dhaweysayna waan u mahad celinaynaa waa walaalaha wasalaamu calaykum waraxmatullah الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waxaa qiime iyo qaayo weyn noogu fadhiyo wabarkeena wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi oo aan hilow u qabnay oo weliba xataa hilow laga qabo hirshabeelo idil hal qofku ma koobno soomaaliya oo dhan oo ka dhexeeya insha allahu tacaala wabar waa kusoo dhaweeynaa xildhibaanada heer qaran iyo heer magaciisi goboleed idinkana sidoo kale dhalinyarada waa idin soo dhaweeynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullah gacmo furan kusoo dhawa wabar بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan rabaa inaan salaamo ugu horeysa ugaasiyada xildhibaanada heer gobol iyo heer federaal wasiirada hore aqoon-yahaniinta wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi inaan salaamo salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan ilaahdo wabar uu soo dhawow dadkaadii aad u timid oo ku jecel iyo dalkaadii aad timid waa lagu jecel yahay waad arkaysaa lagu jecel si lagu soo dhaweeyad ka garataa soo dhawow waad naga maqneed xibin naga maqamaad aheed waa qaalintii aad buuxin jirtay inaad buuxisaa lagaa rabaa wixaad qaban jirtay inaad qabataa lagaa rabaa duubnimadaad ku shaqayn jirtaa lagaa rabaa sidaad walaalka ibraahim axmed u sheegana waxaa la rabaa midnimo iyo walaalnimo iyo ahalnimo lasdugsadaa la rabaa ilaahay baa ku keenay ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow walaalnimo ku soo dhawow jacayl lagu qabo ku soo dhawow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan duubabka sharafta badan xildhibaanada khiyaarta kale halkaas wada qayb gashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaa aad iyo aad maaragtay farxad noo ah in waa sideennii oo hirshabelle isku duuban xildhibaanadii dadka kale waxgaradka ahaa culammadii yaan la kala harin islaamiyada maanta halkan loo yimid in la soo dhaweeyo wabar maxamed wabar axmed wabar cabdi farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad bay farxad u tahay asigana si wanaag bay u tahay intaanu dadkiisii ahalkiisii ah inay soo dhaweeyaan farxad ku soo dhaweeyaan arrin aad iyo aad qaali weeye waxaan leeyahay wabar maxamed ku soo dhawow weji furfuran qalbi farax leh ku soo dhawow intaas waxaan leeyahay wabarka waxaa kaloo leeyahay ku xijinaya xoogaa in ku darsaan rabaa soo dhaweyntan haddii waxba noolma rabin aad looga hadlay loo soo dhaweeyey waxaan rabaa mar haddaad tihiin waa sideeni duubabkiina hor fadhiyaan wabaradii waqti waxaa lagu jira xasaasi ah aqal tiir la-aan ma dhismo hadduu aasaas lehna ma dhismo waxaad tihiin aasaaskii iyo tiirarkii qaran ku taagnaa baad tihiin aad baad qaali u tihiin maanta soomaaliya way run tahay oo hadda wax badan laga soo gudbay laakiin waxaad moodaa xoogaa siyaasadda hadda inay qalabsan tahay marka waxaa la rabaa oo aan idiin soo jeedinayaa adinku wax garanaya waxaad ogtihiin aan idiin sheegayaa inaad adinkoo isku duuban arrimahaas si wanaagsan uga qayb qaadataan hadday tahay hirshabeelle hadday tahay midda federaalka dhammaan adinka duubu ah waxaan leeyahay dadka halkaa fadhiya waxay isu yihiin waad garan kartaan wax la qarqarina ma jiraan waxaad isu tihiin waan la garanayaa dadkii annaga dhalay waalidiinta intayna meesha joogto waxay ahaayeen hal far bay ahaayeen hal qof aa matali jirin reebel dheh maayo dadka halkaa fadhiya dadkii waalidiintooda ahaa ama duub ha ahaado ama nabdoon ha ahaado ama caaqilka ha ahaado wuxuu doon ha ahaado hal far bay wada ahaan jireen talay wada ahaan jireen taladaas inaad mataqaanaa isku duubnida samaysaan dadkii markii mataqana dhibaatada dhacday waa la kala baahay dhaqan xumo badan baa soo baxday dadaan talin jirin baa taliyey mashaakil badan baa dhacay waxaa la rabaa markaad duubka haddaad tihiin inaad dadka isku soo celisaan dhaqanka saxdaan wixii khaldan lasoo toosiyo wixii wanaagsan oo qumana la tooyo mataqaana lagu dhaqangeli maxaa lagu taageero intaasaan soo jeedinayaa warkaan kusii dheeraad ma rabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow
dambeyn waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey wawarka guud ee beesha baadacadde wawar maxamed wawar axmed wawar cabdi waxa uuna ka mahad celiyey soo dhaweynta ballaaran ee u sameeyeen beelweynta baadacadde. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil ambiyaa walmursaliin. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle ama dowladda hirshabeelle, ugaasiyada, odayaasha kale waxgaradka dhammaan xildhibaanada labada dhinacba federaal iyo maamul goboleedba iyo wasiirada dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waa mahadsantihiin walaalayaal. cidda inay soo dhaweyso waaba filaya, laakiin in ugaasyada lasoo dhigo ma ahan. intaas markaan ka gudba haddana waa isku leenahay oo saaxiibo badan aan nahay. dee wax badanna waa naga dhexeeyaan, dhalyana waa naga dhexeysaa, dhaqanna waa naga dhexeeyaa, hadduu ilaahay yidhaahdo dee deegaanna waa naga dhexeeyaa. marka meelaan ku kala maarana ma leh. aad iyo aad oo mahadsantihiin, walaal jiraad tihiin, tolka idinkana waa barakaysantihiin. kolley aniga hadda waan imid, waana wadatashi badanna waan yeela doonaa. wax badanoo dee ama federaal ha noqoto ama maamul goboleedba ha noqoto iska warsi u baahanaa jiro. intaan hadda meesha joogto iyo in kaloo naga maqanayna hawshaasi u taallaa. marka wixii hawl waa iska wareysan doonaa, laakiin muhiimadda waxaan ku soo koobayaa maadaama ay soo dhoweyn tahay. walaalayaalow waa mahadsantihiin. intisaamoodo aada soo qaadeen beddelkeeda oo kheyr qabo iyo ajri xasanaad allah idinka siiyo. dad jiro walaal jiro oo barakaysanaad tihiin, allah idin xifdiyo. wax idin guule iyo wax idin gaadaba ilaahay idinma tuso. foolku guulayaal allah idinka dhigo. wixii naga wareegta waa col iyo abar, wixii nagu wareegtana waa diin iyo daruur. dhammaanteenba waa dhimanaynaa maalintay teena timaado. kelimada tawxiidka allahna waafajiyo, tawfiiqda la allahna waafajiyo. wixii shar iyo shaydaanna allah naga xijaabo. siigadan ka duceynay samada allah ka aqbalo. todobada samaawaad midda ugu koreyso allah ka aqbalo. saacaddan joognana saacatul ijaaba allah nooga dhigo. reerahana baasmoog balaayo moog ilaahay idinkiis. cumri barakaysan iyo cibaado suuban allahna wada siiyo. majaha ka midooba madaxana ka jooga ilaahay idinkiis. cimri barakaysan iyo cibaado suubanaan ilaahay ka baryaynaa. dad ma aragtay qulubtooda ay isku soo jeedo oo qalbigooda wanaagsan yahay yaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa. waxaa la yidhaahdaa laab kala tagta iskuma timaado, laakiin lagu kala taga waa isku yimaadiin. kuwii marka wada jir iyo wanaag wax ku raadiya allah naga dhigo. kuwa wanaagga iyo muxuu ahay muxabba iyo kalgacayl isku ximbaarto allah naga dhigo. faatax. cabdirashiid qorgaab, wararka Muqdisho.